toobadkeenkooda in la dhiirigeliyo waxaan dhiirigelinaynaa nimanka fanaaniinta ahaan jiray xumaanta fanka ilaahay u tusay iyo qurunka arrintaas ay xambaarsan tahay ee uu ka mid yahay BK iyo Cabdihani iyo ragga la midka ah waynu u ducaynaynaa ilaahay toobadiina haydin taabageliya baan leenahay ilaahayna haydin ka abaal mariyo walaalaha kale waxa ku dhex jirana waxaynu leenahay umrigu waa kooban yahay aakhirana aad bay u soo ordaysaa adduunyana waa sii socotaa ilaahay u toobad keena si aanay khaatimadu idinka xumaan waad garanaysaa waxa aad ku jirtaan wax fiican inaanu ahayn waxa kale intaan raacinaya dadka had iyo jeer caanka ahaa marka ay toobad keenaan shaydaanku wuxuu adeegsadaa dad fara badan dadkaasi oo toobadkeenka ku caayo ku aflagaadeynaya iyo qaar kale oo beer la xawsanayo isku dayaya xumaantii iyo sharkii shaydaanku iyaga u qurxiyay inay dib ugu celiyaan waxaan akhriyay dhageystayna dadka toobad keenay toobadkeenkaasi ku caayo waxaan leeyahay caydoodaasi waxba idinka qaadi mayso ilaahay baa toobada idinku rafcinaya kor idinku qaadaya tuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun la'allakum tuflixuun waxaan dhageystay qaar sidii ibliis faqri u yaboohayo oo leh xagaad xoolo ka keeni doontaan qaar u yaboohaya sharaftii iyo magicii inay waayaan waxaan leenahay ciise iyo sharaf iimaankii alla ka cabsiga lagu helaa walillahi alcizzatu walirasuuli walilmu'miniin ilaahay baa ciise la rasuulka ale dadka mu'miniinta ayaa leh inna akramakum cinda allahi atqaakum ninka fanaan ahaa dadka faraha badan ee u soo bixi jiray taageeri jiray sacabka u garaaci jiray ciisiya sharaftaasi marnaba ma ahayn way lugoynayeen xumaantaanay ku garab taagnaayeen kuna caawinayeen una qurxinayeen ciisadiya sharaftu waxay ku jirtaa xataa haddaanay cidiba garanahayn oo keenay meelaha uu iska socdo inuu yahay adoon ilaahay rumeeyo ilaahay ka baqaya waxa ilaahay siiyana ku qanacsan sida uu yiri nabi maxamed inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-khafiyya ilaahay wuxuu jecel yahay adoonka alla ka cabsiga badan ee qarsoon ee cidiba aanay dhaadahayn oo aan lahayn aan bax dadka dhexdooda waxa weeyaan u aan baxay sidii shaydaanka u yaboohayaan faqri wiileen maxaad cuni doontaan maxaad ka shaqeyn doontaan haddii fankii aad ka tagteen waa arrin ilaahay hore uu sheegay markuu yidhi ashaytaanu yaciidukum alfaqr wayaamurukum bilfaxshaa shaydaan faqri buu idin yaboohayaa waxaanu idin amrayaa xumaana wuxuu idin odhanayaa si aad faqri uga badbaadaan oo xoolo aad u heshaan xumaantaas sameeya buu idin odhanayaa shaqadii shaydaanka ayay kuwaasi hayaan ha dhegaysanina inaad roodhi iibisaan baa inaad heestaan oo aad jaastaan oo hablaha qaaqaawan aad ku dhex jirtaan 100% idinka fiican inaad kuuli noqotaan idinkoo xumaanta ilaahay daraadii uga toobad keenay wallahi sharaf bay idin tahay marnaba inaanay sharaf daraan idin ahayn waxay xusuusisay qisada noocaasi ibn al-qayyim rahimahullah wuxuu sheegay nin kamid ah culimada nasaarada ama kristaanka inuu aad ula dooday ilaa uu ku qanciyo xaqnimada islaamka markii dambe su'aal weydiiyay uu ku yiri maxaad u islaami weyday mar haddaad qirtay xaqnimada diinta islaamka wuxuu waxaan u islaami waayay qoladan aan hor fadhiyaan madaxda iyo culimada aan u ahay adoomay yihiin dumarkood iyo xoolahoodaba sidaan doona ayaan ka yeelaa roog casbay dhigaan ay ugu soo dhaweeyaan markaan meel ugu tago marka haddaan islaam waxaan cunayaa buu quraanna ma aqaano aqoon kalena ma lihi ibn al-qayyim rahimahullah wuxuu ahaa imaam ilaahay ku arsaaqay iimaan iyo tala saarad iyo yaqiin wuxuu ku yiri ma u malaynaysaa allihii ku arsaaqi jiray adigoo gaala markaad islaamta arsaaqda inuu ka jarayo waxaanu leenahay mayaad u maleynaysaan allihii idin arsaaqi jiray idinkoo caasiya hadiya habeenba waliya macsiyada la jahraya oo muujisanaya oo dadka ugu baaqaya oo inay dambaabaan sabab ugu noqonaya ma u maleynaysaan arsaaqda inuu idinka jarayo markaad ilaahay u toobad keentaan ee dariiqa xaqa aad ku toosnaataan ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلهي بات المامي قفك إلهي كبقى بركة السماء يدلك إلهي نوفريه قفك إلهي كبقى حالتها هذا إلهي فرجين وقيليه إلهي نكار زاقيه ميلان أرزاق ذا كفي لنا هين هرس عضا بين لنا هاي وليبا سيدي أحمد خير أحمد الخير أنا أبحيه مقعاس
ومجيء هراء إنه يسكب إلهي سبحانه وتعالى صابوا يقدقي أحمد الخير مركان حرم وكل الناي يسوى كتوبت كاري شقدا حنا وكل حشر شري طالب علم بو نقضي علمك إلهي كتاب كيس حفظيه وعلمك برتهدنا الداعية إذن كانت سيدا سوكلا إذن كسوق يا بين لا ناي بلشدنا وين يدي رجاليسو ضدك حمان تهرموت ككوا هنشري إلهي درادي سيشاجان وقد تجي توبت كاري اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد